maamulka kumishiga degmada Xudun ee gobolka Sool oo kaashanaya maamulka degmadaasi ayaa sanduuqyadii shaqaalihii u kala diray goobaha diiwaangelintu ay ka dhacayso. Goobahan oo ka kooban 5 goobood ayaa ka qabsoomin doonta diiwaangelintu waxaana ka mid ah Xudun, Arbogays, Lafweyne, Bohol iyo Laasa Curdan. sidoo kale maayirka degmada Xudun Maxamed Jaamac Xirsi iyo maayirka degmada Bohol Cali Yuusuf Faarax iyo xogooyaha dawladda hoose Axmed Bile Dirir iyo maayir ku-xigeenka degmada Xudun Cabdinaasir Guure ayaa dhamaantoodba bulshada waxay ugu baaqeen in kaadhadhka la qaato. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidatan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. halkan aanu taaganahay waa degmada Xudun. saakaanu ka soo boqolay Laascaanood. waxaanu keenay goobihii loogu talagalay in la iska diiwaan geliyo. 5 goobood ee degmada Xudun baanu ku dhannahay. goobaha ay kala tegayaan diiwaangelintu waa Xudun iyo Bohol iyo Lafweyne iyo Laasa Curdan iyo Arbogays. 5 goobood baa loogu talagalay in diiwaangelinta laga galo. xaqiiqiyan waxaanu aad uga rajaynaynaa bulshada deegaanka reer Xudun meel kastay joogaan inay iska diiwaangeliyaan goobaha la cayimay. kaarkaasi wax badan buu tarayaa bal codayni iyadu hadhow si kastaba ha noqotee waxa muhiimadu ay tahay in aynu kaarka qaadanno oo populationka ku nool degmada Xudun uu muuqdo si aynu saami qaybta adduunyada ama jamhuuriyadda Soomaaliland aynu uga dhex muuqanno. waxa laga maarmaana in la qaato kaarka. kaarkaas wax badan buu ina ka tarayaa deegaan ahaan. intaasaan farayaa bulshada. haddana waxaan u kala diraynaa goobihii loogu talagalay in laga codeeyo in la iska diiwaan geliyo baanu u kala diraynaa 5 goobood. inahaasaan ku soo gabagabaynayaa. mar labaad waxaan leeyahay bulshada reer Xudunow isdiiwaan geliya. waxaad isu diiwaan gelisaan waxaa idin soo baxaya tira koobkiina inta uu yahay. haddii aad 2,000 isku diiwaan gelisaanna qoondadiinu 2,000 bay noqonaysaa. haddaad 10,000 isku diiwaan gelisaanna 10,000 baa qoondadiinu noqonaysaa. maanta waa la tartamayaa oo jamhuuriyadda Soomaaliland waa tartamaysaa. degmo ahaan iyo gobol ahaanba waa loo tartamaya. dee halkaynu isdhigno bay ahaanaysaa. haddaynu kor isu soo qaadnana kor baynu u kacaynaa. haddaynu hoos isu dhignana hoos baynu noqonaynaa. inahaasaan ku soo gabagabaynaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. الرحيم الحمد لله رب العالمين. waxaan joognaa maanta degmada Xudun sida ay sheegeen gudoomiyaha iyo xogayuhu. waxaan ku suganahay degmada Xudun. waxaan halkan ku dhan 5 goobood ee loogu talagalay inay iska diiwaan geliyaan dadweynaha reer Xudun. runtii gabi ahaanba Soomaaliland maanta waxa ka bilaabmaysa ama Britole waxa ka bilaabmaysa diiwaan gelintii doorashada soo socota. taasaana markaa lagu kala baxayaayo qof waliba ciduu doonayo iyo meeshuu doonayo waxa wax ku marin kara waxa weeyaan xuduudda uu isticmaali kara waxa weeye codka. waxaan leeyahay markaa reer Xudun gabi ahaantoodba daraf ilaa daraf codkiina waxa weeyaan xuduudiina waxa weeyaan goosashadiina inaad codkiina muujisaan. gabi ahaanba reer Soolla waxaan leenahay inaad qaadataan kaarka. waan ugu baaqaynaa si aynu la tartanno gobolada kale oo aan mar walba lambarkeenu u hooseynin oo gobolada kale inaan uga hooseyn ama aynaan waxaynu doonayno iyo waxaynu diidayno aynaan go'aan uga gaari karin. haddaynaan cod lahayn go'aan kama gaari karo. maanta waa laga baxay qori iyo riwaayado kale waa laga baxay. waxa lagu kala baxaya waxa weeye codka. waxaan leenahay reer Xudun hal isdiiwaan geliyo codkaana hal la qaato dhammaan. wabillahi tawfiiq. Bismillahir Rahmanir Rahiim. hadalku wuxuu ku eegyahay inta uu yiri gudoomiyuhu 5 goobood ee Xudun loo qoondeeyay ee uu qoondeeyay komishanka heer qaran baa waxay diyaar ku yihiin saacadan aynu taaganahay degmada Xudun. waxayna u kala guurayaan dhulkii loo cayimay ee uu sheegay maayirka degmada Xudun. marka waxa jirta maanta waxa lagu jira tartanka waxa ku jira degmooyinka gobolada mid walba cid ay la teetalka tahay. kubadii baa garoonka dhexe taala. marka bilbatri bika ceelfeero kale garadagoo kale Xudunoo kale degmooyinkii uu magacaabay Maxamed Siyaad Barre ee waaweynaa mid walba dewan iyo 2 iyo 3 bay kala gelayaan. inagu hadda reer Xudun nahay tayru galaa waa nasiibkeen. billahi tawfiiq. maanta bishu ay tahay
bishii 12 2022 waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa diiwaangelinta sida nabadgelyada u kala baxaysa oo degmada Xudun shanteedii goobood ah marka bulshada reer Xudun waxaan ugu baaqanaa inta degmadu ay ka kooban tahay in kaarka la qaato oo diiwaangelinta si mug iyo muuqaal loo muujiyo codkeena iyo cududeena si aad hadhootana qofku cidda uu rabana ku soo saaro cidda uu diidan yahayna uu rido marka muhiimiyadu waxay tahay la isku raacay in kaarka la qaato kaarka un baaxbada marka hadalkii hore waxa dhameeyay maayirku inoo furay iyo xoghayaha iyo maayirkii bahol wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxamed maxamuud cawil kawte degmada Xudun ee gobolka Sool.